habboonayn ayadoo silacsan oo gurguuranaysa jika in loo diraan habboonayn aqalka in shaqadiisa looga taga keligeed ayaan habboonayn waxaa wanaagsan in lala shaqeeyo oo la daryadeeyo oo dhibka laga qaado intii la karo gacan laga geysto nolosheeda oo dhan xaqa in la baro qur-aanka loo sheego sunnada in loo akriyo dariiqii nabiga loo tilmaamo sala allahu calayhi wasalam waajibaadka hagaajintiisa ka xisbiyo xardarro ka taga iyo xar lagu yiraahdo walaalayaal sidaas ayaa wanaagsan arrinka loo baahan yahay sidaa weeyaan haddaba walaal rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala waa waxaa nafteeda jeclaan la in laga helo allah subxaanahu watacaala wuxuu cabiray tacbiir cajiib badan rijaashu waa qawaamin danaha iyo xawaa'ijta dumarkay u taagan yihiin diintay ku ilaaliyaan dulliga iyo sircay wax ka qabtaan oy ka dhowraan dhib hadduu soo gaaray garab siiyaan dan hadday leeyihiin ayay danta la qabtaan waxay qaban karaan bay aqalka ugu keenaan saas ayaa lagu ogaa laakiin maanta wax kala bedelay walciyaadu billaah waa dhib aada u weynan badan haddaba walaal rabbi ka boq subxaanahu watacaala walaalow dumar waa dad jilacsan waa dadaan toosnayn istiqaamadu aada ugu badnayn qalloocooda ou saa'id yahay inkastoo toosi tiraahdo inkastood dhoodhoobtood wanaag badan u soo jeediso inkastoo khayrka kulliga u dardaaranto inkastoo waxay kugu yidhaahdeenba aada dheg u jaraqsiinin ogow oo waa dumar oo shay aan khayr ku jirin bay dhegahooda u duleelaan dowlad baa daba walaal sidii la doono inaan laga helin ayaa sharcigu aada ugu laalaabtay in badan dad khayr badan ayaa ku jira oo aan kumanaan raga la siisan laakiin waxaa loo tooghayaa mar walba waxyaalayaa badan inay imaan karaan qarnigaan ku jirno qarni saacidaya ma ahan dadka maanta joogaa xanta iyo beentay isu dardaarmaan ilaa wax alla u naxariistay mooyaane hadday arrinta sidaa noqotay walaalayaal ha la dadaalo oo rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala inanka aan ka naxayo iyo nafsadeyda oon aada uga sii naxsanahayba waxaan ku oranayaa dumarka haddaanan labiska dhiganayn oo sida aratirka aanan u daryadaynayn ha hodinina amaan ha ugu yeerinina wanaagooda haddaanan la diyaar ahayna waray ha laysaga tago xaqiiqadu sidaa weeye axad aan u dul qaadan dumarka waxba kuma wadi karo dariiqaad rabto kuugu toosnaamaydo ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam markaa qof walbow waxaa lagaa doonayaa inaad waxyaalo badan ka qabatid arrinta tan haddaba walaal waa inaad ogaataa zawjo waa adiga maradaada waa tii aqalkaaga hagaajinaysay waa tii owlaad haddii alla ku siiyo adiga jirkaaga tii xambaarsaneed waa adigoon wax cunitaan jiifanaynin waa adigoo dhibaataysan midda dhibkaaga ka walwalaysa waa waxa ku soo gaaraa miday wadnaha ka bedelayaan waa maskaxdeedu miday daa'iman adiga arrintaada ku xiran tahay qofka sidaasa walaalow lama xumeeye waa la daryadeeyaa lama dilee waa loo naxariistaa lama duleeyee daliilkaa la baraa lama dhaqan dareeyee dhab baa loo dhaqaaleeyaa lama inkaaree ducadaa dhab loogu halhaleeyaa xumaan lagama sheegee samaanteedaa dariiqyada lagu hayaa waxaa alla looga mahadiyaa in badan wanaagga ay kuu gelayso ducadaa loogu dhawaaqaa markay khayr kuu dhiibtaba amar wanaagsan markay kuu qabataba ilaaha kuu labanlaabaa jawaab looga dhigaa sidaas ayaa guusha lagu gaaraa ee haddaba walaalow dadaal haddaadan walaalow inanta caradeeda u dulqaadan hadal hadday kugu tiraa haddaadan sabar badan la imaanayn maxay ii tiriso wadaad maahan haddaad oro doontid malaa'ig aan dambaabayn oon dadka qartamin haddaad u haysatid walaalow haysnoojina ee dumarka ka fiirso naftaydaan ku leeyahay iyo nafta kaloon ka naxaya intaba walaalayaal arrintu ma hagaagsana haddaan diinta dhab loogu dhaqmin ee diinta hala ilaaliyo bidca diin noqon mayso baatil alla loogu dhowaan maayo xaqa aan si dhaba u ilaalino sidaas ayaa nalaka doonayaa waa haddaan wanaag doonayno haddaba walaal waxaa laga doonayaa ninka muslimkaa inanta muslimada uu qabo
inuu aratirkeeda dhaqo intuu kari karayo, inuu jika la galo oo mihnada aqalka wax ka qabto, wax badan oo ay qaban lahayd inuu yidhaah walaalka naso, wax badan oo ayada ku culus inuu garab badan ku siiyo, wax diinteeda dhaawacaya inuu dhab uga ilaaliyo, xijaab la-aan inuu ka ilaaliyo, safar maxram la-aana inuu ka waardiyeeyo, waa inuusan isagu dhergin ayadoo gaajo ku seexatay, waa inuusan dharka kala bedelan ayadoo, waa inuusan aabihii xariirin isagoo ehelkeeda ayada gooye iyo walaalaheed iyo waalidkeed, waa inuusan walaashiis isaga la dhalatay sara u qaadin, walaasha ayada la dhalatay isagoo ihaanaysanaya, waa inuusan ku oranin hadal canaana oo carageliya inantaa, waa inuu weliba ka ilaaliyaa wax kasta oo dhiba saacadday wallac noqoto ilaa ay ka dhali doonto. sow lama yaabtisay u wallacaydo dhibka ay qabto ayadoo caloosho u buuxdo oo mataga marar badan soo daynaysa oo majaheeda xanuun badan uu ka hayo, aneemiya uu jirkeedu la bararay, ayay jeceshay inay ku raalli garaydoy sariirtaada gogasho waxaad cunto ay kuu diyaarido. qofka noocaasa miyaa la dhibaa, lase lugooyaa, lase dhaqan dareeyaa? waa wax la wanaajiyo oo markaad aragtaba sujuudu shukri alla loogu dhaco subxaanahu wa tacaala. walaalkaas ayaa la doonayaa. laakiin haddaba walaalow, daryadayn haddii aadan samayn karin, asaadan dhib badan xamili karin, guurka layskuma lugooyo, dumarkana been looma sheego. haddaadan walaalow u diyaar ahayn matag badan oo qofkaa ka yimaada inaad ka tirtid, dhareerkeeda inaad dhulka markuu gaaro jirkeeda aad ka tirtid, si walba aadan u diyaar ahayn inaad dhabta ugu qabatid, haddaba walaalow dumarka lama lugooyo, guurka waa layska daayaa. xaqiiqaduna sidaa weeye, aanu dadaalno oo aan diinta alla ilaalino. sow ma ogid shahwo oo dhib badan inay kaa xambaartooy adiga aada kuu wanaajinayso? sow ma ogid jir dadka laga qariyay in adiga lagu tusayo? sow ma ogid maxal aan dadka loo soo dhaweyn in adiga laguu soo dhaweynayo? sow ma ogid meel aan dadka lala jiifsan in adiga lagula jiifanayo? sow ma ogid hadal dabacsan oon dadka lagu dhihin in adiga lagugu dhahayo? qofka sidaa kuu wanaajiyo intaa kuu qabtay, jirkeedii dhammay kuu dhiibo adiga dhan isu kaa dhiibay, agtaada qof la qafaalo asiira ku ahaaday, ilaah jirkeeda aayada kuugu baneeyey, amaakin lagaa mamnuucay hadda laguu qayxay, albaab aan dadka kale lala gelin adiga lagula galay, hadal macaan oon dadka lagu oran adiga lagugu yiri, gacan aan qof kale dusha laga saarin adiga dusha lagaa saaray, makaan aan dadka kale lala huwa aan lagu baalgelin adiga lagugu baalgalay, kolay aan dadka kale la siin adiga lagu siiyey. qofka noocaasa miyaa la xumeeyaa? maye waa la wanaajiyaa. haddaadan walaalow daryaday karin, dumarka been looma sheego, lamana guursadee, waa layska daayaa.